بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ ذا سلطنة مقالة مقدشو قيبتي dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika jacalkiisa bari waxaan ka soo hadlaynay imaamadii hiraab iyo marxaladihii ay soo martay annaga oo halkaa kasii wadayna waxaan halkan kaga hadli doonaa itaaldarayntii imaamada iyo dhicidii imaamada iyo waxyaabihii u sababta ahaa iyo sida ay ku weydii dowrkeedii talada ee saldanada muqdisho. Si kastoo ay u xoogaysato saldanad waa tii jagada bannayso. sidaan hore uga soo hadalnay qaybihii taariikhda saldanada muqdisho qaybtii 1 ilaa iyo qaybtii 5 waxaan si faahfaahsan uga soo hadalnay saldanadii muqdisho ee ajuuraan ee itaalka iyo awoodda weyneed ee taladana haysay muddo aad u dheer, taa oo gaartay heer ay yar tahay saldanad gaartay marka la isku soo duubo Afrika, gaar ahaan dhulka loo yaqaano Sub-Sahara Africa oo ah Afrikada ka hooseyso lama degaanka Saxaaraha. haddana waa tii dhacday oo ay imaamadu beddeshay taariikhda saldanada oo aan si kooban looga hadli karin haba la isku dayee. waxaan dib ugu noqon doonaa waxyaabihii ay qabatay iyo raadkii ay reebtay inta aanan horay ugu soconin dhicidii imaamada. waxaana ku bilaabaynaa halka ay ka gaartay awoodda military. saldanada ajuuraan waxay ahayd xoog aan la dhayalsan karin. taana waxaa tusaale u ah in Burtuqiiska oo ahaa awood caalami, superpower waxa hadda loo yaqaano, ee waagaas markuu ku habsaday hantidii iyo khayraadkii magaalooyinka Kilwa, Mombasa, Malindi, Peta iyo Lamu, sahamiyihii iyo weliba taliyihii ciidamada badda Burtuqiiska oo ahaa Trastão da Cunha waxa uu liishaan ka saaray dhulka saldanada ajuuraan, taas oo uu magaalada Barawe weeraray. dagaal birta layskula kufayna uu ka dhacay. dagaal daba dheeraaday kadib Burtuqiisku waxay bililiqaysteen magaalada wayna gubeen. ciidamada saldanada iyo shacabka waxay kala hor yimaadeen gardaraysiga difaac nafhurnimo ah. Burtuqiiskana waxay u diideen inuu ku lado magaalada oo uu sii joogo. dib bayna ugu soo noqdeen magaalada, dibna waa loo dhisay. Trastão da Cunha waxa uu u sharaacday Muqdisho oo ahayd sidaan hore ugu soo sheegnay qaybihii hore ee taariikhda magaalada Muqdisho, magaalada ugu qanisan bariga Afrika. iyada oo laga dheregsan yahay waxyaabihii Barawe ka dhacay ayay saldanada ajuuraan heegan gelisay ciidamadeeda, ciidan fardooley ah iyo ciidamada badda iyo maraakiibta dagaalka. waxayna ilaali iyo gaafurey ka hayeen Muqdisho iyo xeebaha saldanada. Trastão da Cunha waxa uu go'aansaday inuu weeraro magaalada, walow saraakiishiisa ay kula taliyeen inuusan sidaa yeelin, iyaga oo ka baqayay jab la hubo in uu gaari doono hadday faraha isa saaraan iyaga iyo ciidamada saldanada Muqdisho. Trastão wuu ku qancay taladaas, wuxuuna u huleelay jasiiradda Suqadara. intaa kadib Burtuqiisku waxay heshiis nabad la saxiixdeen saldanada, walow isxagxagashadii ka dhexaysay labada dhinac ay sii socotay muddo. Burtuqiiska waxaa welwelgeliyey isku soo dhowaanshihii Cusmaaniyiinta iyo saldanada ajuuraan. si ay u ciqaabaan saldanada Muqdisho waxay ku weerareen Muqdisho ciidan uu hogaaminayay Admiral João dos Bovilda. waxaase ka raacay jab weyn. ciidamada ajuuraan waxay ku guulaysteen inay cagta mariyaan Burtuqiiskii soo duuliyay inta aysan soo gaarin Muqdisho. taliye João dos Bovildana halkaas ayaa lagu dilay. sanadadii 1580 ayaa waxaa dhacday in magaalooyin hoos yimaada saldanada ajuuraan ee xeebaha Soomaaliya ay bilaabeen inay u nuglaadaan xudxudashadii iyo saameyntii carabtii iyo sawaaxiligii ku hoos jiray xukunka Burtuqiiska.
taasoo iyadana dhankeeda saldanadda ajuuraan ay u qayla dhaansatay saaxiibadeed cusmaaniyiinta. waxaana loo soo diray raxan maraakiibta dagaalka ah oo loo yiqiin turkish corsair oo uu hogaaminayay taliya cali miirbay. waxayna la duuleen raxan mug leh oo ah maraakiibta dagaalka ee saldanadda muqdisho, waxayna weerar ku ekeeyeen dhulkii uu burtuqiisku ka haystay koonfur bari afrika. waxaana laga buriyey burtuqiiska magaalooyin muhiim ah sida beeta, mombasa iyo kilwa, walow ay gadaalihii ciidamo xoojin ah ay ka dalbadeen ciidamadii burtuqiiska ee joogay hindiya, ayna dib u qabsadeen magaalooyinka. waxayna ciqaabeen madaxdii magaalooyinkaas, balse dib uma soo hunguriyeynin, ugumana soo duulin saldanadda ajuuraan. qarnigii 17aad waxay khatar ka soo korodhay dhanka qaranka oromada, waxayna bilaabeen in ay kasoo fidaan dhulkooda oo ahaa agagaarka harada abbaaya ee koonfur etoobiya, una soo siqaan dhanka xeebta ee koonfurta soomaaliya. waqtigaas oo ay saldanadda ajuuraan ahayd xoog aan laysku taagi karin, xukunkii gareen waxa uu ku saaray dhowr olole oo lagula tacaalayay oromada, loona yaqiin dagaaladii gaalamadooda. oromo waxaa ku dhacay dhirbaaxa libaax, dhulkay kasoo duuleen ayaa dib loogu celiyey, shurugoodna waa raacay. intii nolosha lagu qabtayna waa la islaamiyey. haddaan ka hadalno dhanka dhaqaalaha, cusmaaniyiintu waxay shuraako dhaqaale kula sii jireen soomaalida intii laga gaarayay qarnigii 16aad iyo kii 17aad. salaadiintii iskaga dambeeyey saldanadda muqdisho waxay hor istaageen gacan ku hayntii burtuqiiska ee dhaqaalaha badweynta hindiya, waxayna soo saareen lacagtii aan horey uga soo hadalnay, taasoo ka dhigtay saldanadda muqdisho mid bannaanka kula dhacday madax bannaanideeda marka laga hadlayo burtuqiiska. marka aan ka hadalno dhanka dhaqanka iyo ilbaxnimada, saldanadda ajuuraan waxay u sabab ahayd in ay diinta islaamka aada ugu fido bariga afrika, gaar ahaan geeska afrika. waxayna soo saartay culamaa u diin waaweyn oo diinta gaarsiiyey meelo badan, oo ay ka mid ahaayeen sidaan hore usoo sheegnay sheekh saciid al muqdishaawi iyo sheekh cabdilcasiis al muqdishaawi. waagii saldanadda waxaa aada u kordhay wax soo saarka beeraha, taasoo ay saldanadda ahayd tan ugu horreysay ee afrika ee adeegsataa habka waraabinta beeraha, hydraulic system of irrigation, oo biyaha kasoo qaadayay webiyada shabeelle iyo jubba, geen jirina dhul in la tacbadaa aysan suuragal ahayn saldanadda ka hor. waxay kale oo qoday ceelal fara badan oo ilaa iyo hadda laga cabo. dhanka dhismaha iyo handasada raadkeeda ilaa iyo hadda ayuu ka muuqdaa magaalooyinka camirmay iyo dhismooyinkii waaweynaa inta ay xukunka haysay. waxaa kale oo jira in waddanka la yidhaahdo madagaskar uu magaca ka qaatay magaalada muqdisho, waxaana u bixiyey sahamiyihii caanka ahaa ee marco polo. isaga oo marka hore magaca magaalada si qaldan u akhriyey, ayuu haddana waxa uu u adeegsaday jasiirad 250 mayl u jirta xeebta mozambique, taa oo uu u bixiyey madagaskar, isaga oo u haysta inay tahay muqdisho. in aan dib ugu noqono taariikhda saldanadda magaalada muqdisho waxay ahayd in aan tusno halka ay ka gaartay awoodda iyo in ay ahayd quwad caalami ah. haddana sida caadada u ah boqortooyooyinka iyo saldanadaha, meel kastoo ay awoodda ka gaaraan dhowaa iyo dheeraa, waxaa lama huraana in ay dhacaan oo maalin uun meesha ay banneeyaan. waana sida loo yiri, boqortooyooyinka waxaa loo dhisaa inay dhacaan. sidaa ayaana ku dhacday saldanadii taariikhda baalka dahab ka gashay. sidoo kale ujeeddada aan dib ugu noqonay waxqabadkii saldanadii muqdisho, gaar ahaan saldanadii ajuuraan, waxay ahayd imaamadii hiraab ee la wareegtay xukunka iyo gacan ku haynta talada saldanadda muqdisho. iyaduna sidoo kale waxay noqotay mid xoog leh oo xukunkeedu adag yahay. horumarka saldanadana kasii waday halkay tii hore kaga tagtay sidaan hore uga soo hadalnay. balse sanadkii 1870 qiyaastii 250 sano kadib qabsashadii imaamada ee saldanadda muqdisho, waxa uu bilowday waqti uu hoos u dhac ku yimid, taasoo uu sabab u ahaa mashaakil dhanka gudaha ah iyo mid kaga imaanayay dhanka dibadda. si faahfaahsanna arrintaa waxaa uga soo waramay talyaaniga. intaana waxaan kusoo gabagabeyneynaa taariikhdii saldanadda muqdisho qaybtii 7. qaybta 8aadna kala soco isla halkan oo ah shanalka rugta hiddaha.
dadku yaqaan taariikhdu durugsan bay jireen